oo la midabuna oo la muuqaala wixii aynu garanayno 94kii 93kii 94kii dhacay Liibaan 1 iyo Liibaan 2 iyo arrimihi salbalaadha ahaa siyaasiyiintii beesha ahaa ee Tuur iyo Jaamac Qaalib iyo ninkii la oran jiray Buuba filinkii dhaqaalihii $10 million from Sacuudiga ka imanaya iyo ciidan galay haddii la leynayo caruurtooda ogaadeen kuma waa leen jiray ee uu sheegayay ninkay ilmaadeerka ahaayeen waqtigii 2017 ee doorashada dalka ay ka dhacaysay arrimaha aynu barnaamij ku soo qaadanaa haddii ilaahay yiraahdo waxaad leeyahay soo dhawaada koronto caruuxiisa leh dhageystayaal iyo dhugtayaal gacanta dhaqaaji faafi waxa weeye dabeetana aan idinku kabo xogta idaacadda raadiyo Rushaga ay ka hayso arrimahaasi waxa weeye socda iyo jahawareerka ka dhacaya ee ka taagan caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo sidoo kale magaalada Burco iyo waxa la walaaqayo ayaan marka hore aynu arrintaasi ayaynu ku falanqeyn doonaa laakiin waxaan doonayaa hal kelmad inaan ka yiraahdo ilaahayna xajna ka waraabiye saciimkii weynaa saxafigii balaadnaa shacbiga reer Somaliland iyo gudoomiyaha ka ahaa Horyaal TV sayid oo ku geeriyooday magaalada caasimadda oo ah dalka Ethiopia Addis Ababa la yiraahdo oo qalleen ku galay oo markii dambe Allahii abuuray oofsaday reerkii qoyskii iyo caruurtii iyo dadkii kale asxaabtiisa ahaa groupkii la shaqeynayay Horyaal TV dhamaantood waxaan leeyahay sabiriye iibaan jidka wala maraya safka lagu wada jiraa laakiin ilaahay isaga ha uga dhigo qabrigiisa qayb ka mid ah jinooyinka daaqadaha raxmadda iyo naxariista ee bahar raxmaanka ee Casa wajalla ha u furo inagana ha inaga dhigo kuwii ilaahay subhanahu wa ta'ala oo uga daba naxariisto haddii la idmiyo bal hadhiisayal aynu ku soconno oo aynu dhageysano haddii la idmo Faysal Ali Waraabe oo maanta hadlay ama Faysal Ali Durwaas oo taqaanaan oo sir weyn fashiliyay aynu marka hore isla eegno fadlan si sheergare oo faafi idaacadda raadiyo Rushaga haddaynu isla eegno hadalkiisii iyo wixii uu shubayay maanta codku waa kaleer baan filayaa dadka qaar baa halkan message ku soo diraya oo le waxa weeye codku xogaa miyuu hooseeyaa mise waxbaa ka yara qaldan hadday wax ka qaldan yihiin fadlan inoo sheeg idaacadda inta aynaan bilaabin haddii la idmo waa ku soconayna haddii la idmo idinkuna waxa weeye gacanta dhaqaajiya bal haddaan dhageysano Faysal Ali Waraabe haddii la idmo telefoonka kale ayaa shidahay markaa raalli ka ahaada haddaan dhageysano ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa kadib safar uu kaga maqnaa dalka gudoomiyaha waxaa dalka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga odayaal madax dhaqameed oo nabadgelyo ugu soo celiyay dalka nabada ee mahadle سؤالك يوقع سنة كيف سمر يسمعنا الحمد لله رب العالمين لا يمنع كان السياعة في مالتين السياعة لها بهدوية ده واحد كلمة شراني ما أدون كمان تا قسبة كتاين أدون كوران دجالك يقوين أبارو شغالك وقعي معيشة وقعي TV kasoo arkaysa waxaad arkaysaa waxaa laga daynayaa arrinta Soomaalida geeska degan hadda waxaan daawanayay barnaamij laga soo duubay maamulka magacaansaay Garowe oo ka soo duubay inuu joogay waan soo dhaweynaynaa shirka Burco maadaama hadda wadankii aad moodeen qalab ku sameeyay وشرعي دستوركي دلكو شقيني إلى لو كوي عطنكي والله علي ويوحى الشرعي وحنا ما نجعلها شو مركز دلك لو بدباديو تعب خسارة إنه ودين شركة بروح نجعلها إنه كسر بهدونا أنا ما نكسني
noqon doono kii koowaad weliba tuna ku xigi doono haddii ilaah yidhaaho saasaan jeclahay dalkan laga badbaadiyo musabixi laga badbaadiyo hore lagu badbaadiyo maantana insha allah waa laga badbaadin doonaa waxaan leenahay shacbi reer somaliland yaanu kala qabyaalad isku soo dhex tuurin qabyaalad PhD ku sitaa baashaas taa la iska ilaaliyo haloo midoobo maanta dhibaato aan ahayn musabixi dalku male 21 beri oo hadhay 21 beri wixii ka dambeeya dalku talu gaaraya insha allahu tacaala dowlad ku meel gaara samayn doonaa insha allah oo doorasho qabata xalaal oo qabata dalkan waxaanu sheegaynaa inaanu doorasho urur ka dhicin waqti iska khasaaray oo ka dhacaysa dalkan ma jirto hadii la yiraahdo waxaan ka baqan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaka camalka u celiya waxa uu sheegay oo uu qarsan kari waayey wixii uu kala soo noqday Dubai hotelkii uu deganaa waanigii idaacadda idiin soo dhigay beejkeeda ayaa ka helaysaan laakiin waxaan doonaya ummadda reer somaliland inuu iftiimiyo iyo halkaa kula kulmay yaa u yeedhay halkaa wuxuu kula kulmay boqor cismaan aw maxamuud buurmadow waxa uu se kula kulmay oo kale ninka ra'iisul wasaare ku-xigeenka ka ah Soomaaliya reer Cerigaabo Faysal isagu waxa uu Hargeysa ka soo degay boqorkuna waxa uu ka deegay magaalada Djibouti oo hadeer waxa weeye isla Muqdisho tagaya maadaama Xasan Sheekh isna waxa weeye shirki cimilada uu kaga qayb galay halka marka Xasan Sheekh halka iska sii raacayaan isagana Hargeysa loo soo diray shirka waxoogaa dhaqaalaha baa loo soo dhiibay waxaan wakiil kaga ahaa oo halka uu tagay waxay ahayd in dhaqaale waxa weeye la geliyo nimanka shirwadayaasha ee magaalada Burco fadhiya ee guddi colaadeedka ah sidii dhaqaalaha ay ugu bixin lahayd dowladda taagta daran ee Soomaaliya aynu garanayno iyadoo loo soo marinayo ninka ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo saa u garanaysaan ay isku beel yihiin Cabdiraxmaan iyo isagaba qorshaha iyo go'aamadana ay qayb ku yeelato go'aamada Somaliland gudaheeda shirkaasi laga soo saarayo dowladda Soomaaliya oo ay iyagu qayb ka noqdaan oo ay ku noqdaan involved ku noqdaan decisionska iyo arrimaha la qaadanayo marka Faysal iyo Prime Minister ku-xigeenka Soomaaliya iyo boqor Cismaan waxay isugu yimaadeen Dubai dhawaana kale waa maqli doontaan xagga xamarna kale waxba ka soo bixi doona iyagoo sidoo Xasan Sheekh hore u sheegayay ay faragelin ku sameynayaan arrimaha muranka ee Soomaaliya waqtiga ka taagan isagoo aan qoraba u qarin markii uu Mareykan joogay hadeerna waxa weeye ay odaygii iyo isagoo iska sii raacayaan boqorkii magaalada Djibouti oo ay ku noqonayaan xamar ninkii odayga ahaa kale sidaan maqlaayo isagoo Turki baa u tagay laakiin xaggaas la isugu tagay laakiin odaygu waa sidaa wixii loo soo dhiibay go'aamada iyo arrimaha la doonayay ee isagu Somaliland iyo shirka garxaasi waxaas oo dhan isaga waxa kaga weyn in xal loo helo sidii dukaankiisu u sii jiri lahaa haddii kalena isagoo qayb ka noqdo waxa laala wixii dhacaya ee isku riixriixa arrimaha siyaasadda ee Somaliland isagoo neefsi siyaasadeed ama fursad siyaasadeed ka raadinaya waxse aad iyo aad u la yaab leh shirarka beeruhu Somaliland beel waliba inay qabsataa oo ay dhaqaalaheeda iyo dhaqankeeda iyo siyaasadeeda daaqsinteeda iyo biyaheeda iyo deriskeeda iyo dhaqankeeda ka shirtaa oo iska caadiya oo beelaha kale Somaliland waa shiraan beelaha Soomaalida waa shiraan laakiin waxa mushkilada in siyaasiyiinta haddii la idmo Cabdiraxmaan iyo ninkan isaga naftu hayso ee la yiraahdo waxa weeye Faysal Cabdurwa inay badbaadintooda asxaabtii xusbiyadii ay siyaasadda ku filgaroobay inay qabiil u bedelaan oo ay yiraahdaan group uu samaystay Cabdiraxmaan oo buurta ka yimid oo aan dhaqanka beesha aan shaqo ku lahayn oo aan dan reereed wadin oo reerku waa reer ballaaran weeye meel walba jooga haddii dhaqankoodii arrimahooda laga hadlaayo odayaal duqeytiya oo dhaqanka yaqaan oo imaamadow sita oo Hargeysa jooga oo Burco jooga Cerigaabo jooga baa jira oo waa nimankii baraha bulshada ka hadlayay ee ay ugu dambeeyay guddidii berigii buurta lagu sameeyay qaybtii ka mid ahayd ay ka hadlayeen magaalada Hargeysa iyo Burco ay ka hadlayeen yiraahdeen niman baa aftuubtay warintaasi arrin dhaqan ma aha xusbi baa wata oo ay cadeeyay hadlayeen oo baraha bulshada ku aragteen
laakiin waxa ayaan darro iyaduna weyna oo wax aan la qaadan karina oo maskaxdeena ka weyn tan iyo 1993 ilaa haddeer aynu taagannahay oo 2023 aynu sii gelayno siyaasiyiinta ku abtirsanaya meeshaa sharafta leh inay dhammaantood dantooda siyaasadeed iyo danaha gaarka ay leeyihiin beeshoodana ku burburiyaan iyaguna waxa weeye aakhirka halka ay tagaan aynu garanayno ninkan odayga ah ee faysal la yidhaahdo faysal caldurwaa 21 sano xusbi haystay 21 years buu haystay xusbi la yidhaahdo ucid la yidhaahdo baqali inay wax dhashana ma ogola wax dhalana ma jecla baqali waxa ma dhasho wax dhalayna ma ogola doorasho madaxtooyo iyo doorasho dalka ka dhacday 21 sano wax faa'iido ka keenay ma jirto kuwii ugu dambeeyay wayna gaarkina ceebta ka raacay ninkan kale ee isna waxa weey 12 sano baarlamaanka soo fadhiyay waxa kaliya Soomaaliland legacy taariikh uga tagay in golihii wakiiladaha ee isugu gudoomiyaha ka uu 2 jeer xidhmay waxa kale uu taariikh uga tagay inuu ku xigeenkiisa feeray oo tantooma la dhacay inta kaliya taariikhda u gashay waa inta weeye waan dhamaantii record aynu hayno oo dhamaantii wada ogtiin waxa kale oo inoo taalo aynu dhamaantii wada ognahay in isaga oo guuleystay oo xusbi ahaa oo soo baxay oo tartan galay oo markii dambe laga badiyay inuu inayray waxaan hambaliyeeyay waxaan hadiyad ku siiyay oo nu tanaasulay xusbigii ka guuleystay hogaankii ka guuleystay oo aan af rageed ahayn oo af siyaasi ahayn oo af mas'uul aan ahayn oo af hogaamineed aan ahayn intuu soo fursulaan waa tanaasulay iyadoo 80 kuriyo cod iyo dheeraad lagaga badiyay oo nimankii siyaasadda Soomaaliland ku jiray waxba siraya ahana 80 cod hadda 100 ma 90 cod ma 95 ma 80 cod soo ka taariikh wanaagsanaa ka population wanaagsanaa ka ilbaxsanaa ka waayaragsanaa ka odaytinimo badnaa 80 cod aanu oran waxaan amaahiyay daahir yaala kale isagoo 80 kor cod lagaga badiyay aynu ogeyn lahaa gabilay uu haystay 4 cisho oo lahaa halaygu celiyo dib halaygu tiriyo hadda halka la tirinaya maaha ood weyn oo deegaankiisiya maaha waa deegaankii madaxweynuhu ka soo jeeday waa uu yiri laygama badine waa in laygu celiyaa lay tiriyaa 4 habeen waa uu dul taagnaa markii dambena muxuu yiri dad aakhira codayay waa ka tegey markii halkii kuma daynay shir sidan oo kale u abaabulay guddi buu samaystay waa kii buurta koray jabhadda samaystay caruurta ceelif way ku laayay ilaa qarna tegey wixii ka dhacay weyniga ogey waa ka yimid haddana dhalinyartii iyo shacbigii isaga indhaha u ahaa inuu labada indhoodba ka riday oo uu baabiyey oo uu laayo dadkooda aakhira joogaan qaybtood maanta wayna ogeen oo waynaga ogeen intuu siri u dhiibay oo xabaalaha geeyey kii aynu caynkaa ku naqaan